waxaan hore u soo dhignay channelka meelaha ugu qabow caalamka waxaana ballan qaadnayna soo dhigi doona meelaha ugu kulul caalamka fiidiyoogeennana wuxuu ku saabsan yahay meelaha ugu kulul caalamka laakiin intaynaan bilaabno soo diyaarso koob biyo u qabow waxaan geli doonaa jawi aad u kulul magaalada Qibali waa magaalo ku taala bartamaha dalka Tunis waxaana lagu tiray inay kamid tahay magaalooyinka ugu kulul qaaradda Afrika heerkulkii ugu sareeyay ee magaaladani gaadhay waxa uu ahaa 5 degrees Celsius haddaba magaaladan waa magaalo soo jireena oo qarniyo badan soo jirtay taasina dadka waxay u saamaxday inay sameystaan habab badan oo ugu noolaadaan oo lana tacaalaan kuleylkaasi haddaba dadku waxay sameeyaan intay waxay kaydiyaan biyo badan si ay daba joogaan biyahaas u kaydiyaan si ay kaliya u ilaashadaan qabowga biyahaasi Timbuktu waa magaalo ku taala dalka Mali waxaana ku wareegsan magaaladan buuro magaaladan waxa lagu tirin kamid tahay magaalooyinka ugu kulul qaaradda Afrika waana mid ay ciid buuxisay wadooyinkeeda magaaladan waxay dhinaca koonfureed ka xigtaa saxaraha weyn taasoo la macnaa inay 10 mayl ka xigto dhanka waqooyi webiga Niger haddaba magaaladan wuxuu heerkulkeedu gaadhaa 45 degrees Celsius Area Phoenix waa meel ku taala dalka Mareykanka meeshan waxa lagu tirin kamid tahay meelaha ugu kulul guud ahaan caalamka meeshan waxa heerkulkeedu gaadhaa 60 degrees Celsius waxaana dadka ku nool ay gaadhaan 1 milyan oo qof haddaba meeshan waa meel ka duwan meelihii hore waxaana dadka meeshaas ku nool ay sameeyeen tijaabooyin cajiib tijaabooyinkaas oo tusaysa meeshan heerkulkeedu uu u daran yahay isla markaana aanay dadkaas meeshaas degan u baahnayn waxyaabaha dadka qaar ay u baahan yihiin waxayna tusayaan buskud ama xalwad ay xagay oven ka gashin lahaayeen u dhigayaan kaliya cadceed isla markaana cadceedu u dhalaalinayso markaa uu diyaar u noqon waxaas la cuno bal daawasho wacan haddaba dadka magaaladaasi Phoenix degan ma aha dad soo baxa badanka waliba xilliga xagaaga waayo hadda 10 minute kaliya ta taagnaatid meeshaas waxa laga yaabaa inaad qaadid nabarro waaweyn iyo waliba inaad naftaada gubtid oo cadceedaasi ay ku gubto waxyaabo badan oo dhibaatooyin badan ka soo raaca marka dadka badan waa looga digaa inay dibadda joogaan waliba xilliga xagaaga Toga Xalfa ee Suudaan togan wuxuu ku dhow yahay xuduudka Masar Togana waa mid ka mid ah meelaha ugu kulul caalamka isla markaana mid ka mid ah meelaha ugu qalalan caalamka haddaba meeshan hadeen taariikhdeeda eegno 1967 Abriil waxay ahayd markii ay gaadhay heerkulku 55 degrees Celsius halka 2015 ay ku dhinteen 16 qof 16 qofna waxa ay dhinteen sababtoo ahayd in kor u kacay heerkulka meeshaasi Saxaraha Luud ee Iran saxarahan waa saxaraha ugu kulul Aasiyada dhexe saxarahan kuleelkiisu waxa gaaray inaanay wax nolol ah ka jiri karinba haday tahay mid bani aadam mid xayawaan xataa bakteeriyadu kuma noolaan karto saxarahan iyadoo la og yahay in bakteeriyadu ay ku noolaan karto meelaha aadka u kulul iyo waliba meelaha aadka u qabow saxarahan la yaab kale ayaa 2008 waxa uu gaaray heerkulkiisu 63 degrees Celsius halka mid ka mid ah satellite-da wakaaladda NASA uu soo qabtay heerkulkii ugu sareeyay caalamka oo meeshan ka diiwaan geliyay oo ahayd 71 degrees Celsius si kastaba ahaatee waxa laga yaabaa inaad isweydiinaysaan maxaa meeshan lagu bixiyay saxaraha Luud inagoo og inuu magacan yahay magacii Nabiyullaahi Luud waxa la sheegay hadaba in meeshan uu sii joogay Nabiyullaahi Luud ka hor intaan u tagin mandaqada Baxrul Meyd ee ku taala Urdun Ilaahay baana og sababta dhabta Queensland Australia guud ahaan waa qaaradda ugu kuluguna engegan caalamka waxaana la sheegaa inay xagaa walba ka kacaan dab kaymaha qaaraddaas Australia 2009 dab ka kacay dalka Australia waxa ku dhintay 179 qof halka ay ku dhaawacmeen 400 qof maalinta ay dhacdadan dhacdayna waxa loo yaqaanaa Sabtidii Midoobay haddaba waxa laga soo xiganay wakaaladda NASA waxay sheegayaan in 2003 ay meeshan gaadhay heerkul ah 69 degrees Celsius